salaamu calaykum. Maanta waxaan diyaaradda ka dejinaynaa waddanka ay ku nool yihiin dadka dunida ugu layaabka iyo dhaqanka qalafsan. Waa dalka Hindiya, gaar ahaan magaalada Varanasi, si aan wax uga ogaano qabiilka Ahori, kuwaas oo cuna dadka dhintay hilibkooda. Marka hore, muuqaalkan aan gaarsiino 100 like si aan u ogaano ka helidda asxaabta. Ahori waa qabiil kaligood degan, dadkana ka fog. Waxay ku nool yihiin agagaarka qabuuraha iyo godad qarsoon. Jirkooda waxay ku daboolaan dhoobo, badanaa waxay soo baxaan marka Hinduusku uu leeyahay kulamo diimeedka. Waxay cunaan hilibka dadka ayagoo aaminsan inay ka helayaan awood iyo farxad. Lafta madaxa ee dadka waxay ka dhigtaan koobab ay ku cabaan khamriga iyo biyaha. Marka aad maqasho Ahori, waxaad dareemaysaa inaad gashay duni kale oo aanan ahayn tan aan ku noolnahay. Siday u nool yihiin waxaad moodaa nolosha filimaanta cabsida ah. Kooxdan Ahori waxay ka kooban tahay tiro dad ah oo noloshooda dhan ku kooban tahay caadooyinka sida cunida, jiif iyo jinsi. Waa dad qaaqaawan oo aanan dhar garanayn. Cuntadoodu waa hilibka dadka. Waxay ku karsadaan cuntada lafta madaxa dadka. Badanaa kama fogaadaan qabriyada iyo godadka ay ku nool yihiin, marka laga reebo hal mar oo 4 sanaba ay soo baxaan ciida Hinduuska maalinta. Waxyaabaha ay sameeyaan waa kuwa caqliga suuradayn karin. Qof kasta wuxuu isku tuuraa webiga Gange ayagoo aaminsan in biyaha webigan ka ilaalin doonaan cudurrada, kana dhaqi doonaan dembiyadii ay galeen. Waxay aaminsan yihiin waxyaalahan ay sameynayaan ee ah cunida hilibka dadka dhintay iyo madaxa ay khamri ku cabaan inay ugu dhawaanayaan ilaahooda. Sidoo kale waxay aaminsan yihiin caadooyinka cabsida leh inuu da'dooda dheerayn doono. Haddii qof kamida ayaga uu dhinto, ma cunaan hilibkiisa ee way gubaan, kabacdiina way ku hareersadaan ayagoo jirkooda marinaya dambaska gubidda meydka. Qof kamida Ahori kama fikirayo nadaafadda timihiisa oo dhaadheer. Waxay ku nool yihiin dhaqan diimeed cabsi leh. Qofka caadiya inuu u tago waa adag tahay, weliba markii laga hadlayo kuwa halista ah ee wax badan haystay dhaqankan. Asalka Ahori, baaritaano la sameeyay waxaa la ogaaday inay ka soo jeedaan qabiilkan koox hore oo la oran jiray Kabalka, kuwaas oo caabudi jiray wax lagu magacaabo Shafaa. Luqadii hore ee Hindiya waxaa loola jeedaa macnaha magaca Ahori, geesi ama qof aanan baqin. Markii ugu horeysay Hindiya waxaa lagu arkay kooxdan qarnigii 14aad ee miilaadiyada. Intooda badan waxay ku nool yihiin tuulo lagu magacaabo Varanasi iyo meelo lagu gubo meydka. Wariye ka tirsan TV-ga CNN ee Mareykanka laga leeyahay, asalkiisuna ka soo jeedo waddanka Iran, laguna magacaabo Rida Aslan, ayaa isku biimeeyay in uu soo ogaado tijaabana ka soo qaado kooxdan. Wajiga ayay u mariyeen dambas dad laga gubay, kabacdi waxay cabsiiyeen cabitaan laga sameeyay lafaha iyo maskaxda dadka. Wuxuu yiri wariyahan, dhadhanka maskaxda dadka waa sida dhuxusha oo kale. Sidoo kale wuxuu yiri, safarkeenu wuxuu ahaa mid halis badan maxaa yeelay mid kamida kooxdan kuwa ugu waaweyn aad ayuu u cariisnaa. Wuxuuna igu yiri, haddaad hadalka badisaan adiga iyo ninka kula socdaba, madaxaan idinka jari doonaa, maskaxdiinana waan cuni doonaa. Wariyahan ayaa sheegay inuu ahaa asagu Muslim, aadna ula yaabay dhaqanka dadkan. Sidoo kale barnaamijkan waxaa ka xanaaqay ama ka carooday dadka Hindiya u dhashay. Sidoo kale waxyaabaha la sheego Ahori waxaa la sheegaa inay ku abtirsadaan in lagu magacaabi jiray Kini Aram, kaas oo noolay 150 sano qarnigii 18aad ee miilaadiyada. Waxay aaminsan yihiin ninkan inuu ka mid yahay awoodihii sanamkii ay caabudayeen ee Shafaa. Qof kasta oo kamida qabiilkan Ahori wuxuu aaminsan yahay inuu dhaxlay awoodii iyo caqligii ninkan. Waxaa adag in la arko ama sawir laga qaado marka ay sameynayaan waxyaabaha naxdinta leh.